cashadan waxaa caawa noo sameeyey golaha wasiirada maamul goboleedka Puntland oo aan maanta shirkii wadajirka ah aan ku qaadanay waxa mid aad u fiican waxaan rabaa inaan wasiirada iyo madaxda maamul goboleedka Puntland ugu mahad celiyo sida sharafta ah wanaaga ku dheehan walaaltinimada sita in loogu soo dhaweeyay magaalada madaxda Puntland ee Garowe wasiirada ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo dhammaan wafdiga la socday ra'iisul wasaaraha oo muddo 3 maalmood hadda ku sugan magaaladan Garowe waxaan dareemaynaa in walaaltinimada iyo wanaaga ka dhaxeeya maamul goboleedka iyo dawladda federaalka uu yahay mid si xoogeysanaya kana fiican kii hore aan aaminsanahay haddii sidaan ku sii socoto horumarka wadanka aan la tiigsanayno aan u wada taaganahay inaan si degdeg ah ku gaari doono hadduu Ilaahay raali ka yahay marka waxaan rabaa mar labaad inaan u mahad celiyo golaha wasiirada oo hogaaminayay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland madaxweyne Cabdiwali Cali Gaas oo si sharaf leh noogu soo dhaweeyay magaalada si sharaf leh noogu maamusay magaalada Garowe